بسم الله الرحمن الرحيم صاحبة شرفت للسود وهذا مالي وناكسن نحارجينا إن ويك إن في عن لو جرو إن كستو ويك قاعد السوق أو حواي نجيه لي هو ويك إن في عن سنون غني إنه مركي قاشتي بيد لقاته ويك إندي مكاسم باش معنا تاي لكن أول مستوى مرة البحال لنا هاي الحمد لله في كل حال صوبتها وحقفك بني آدم كإلهي وحده آية القرآن كده هاي هذا يقول شكر سان وإذن زيادنا معناه ما أهن إن معاد كلية لو شكري حتى إن قدر كان لو شكري وهدي أكون أسبوع هذا كاجبتي ويجي لصودا في صودا سكله مرك وحول بحال رأي الحمد لله إن هذا هدت إلهي نقول امتحان سمها ولا جيابا إن شاء الله تعالى مرك وحول بحكولي دونا الحمد لله في كل حال sidoo kale saaxiibayaal mar walba waxa waaye waxa dareemayna in ciriiri rafaad suuqan in waji uu yeelo waaye in meeshan meel lagu soo qaldamo ay tahay waxa soo kale dad badan in iska dhaadhiciyaan laga yaabaa mar walba waxa qofka markuu inuu guuleysto uu rabo waxa uu soo mara dadka guuleysta in badan hadii wareysiyadooda iyo qaababkay ku soo guuleysteen iyo waxyaabo la xiriira hadaa dib u baartaan waxa ogaanaysaan inaysan jirin wax la dhaho easy come waxa jirto xigmad oo easy come easy go macna wixii sahal lagu helo sahal ay ku baxaan somehow waxa laga yaabaa qof saaxiibka maanta suuq kaaga dambeeyay inuu hal maalin lacag aad weligaa sameyn uu sameeyo laakiin waxaas consistent ma noqon doonto waxa uu joogteen doono waa hal maalin nasiib oo kale waaye laakiin anaga waxa almost waxaan waxa wax cilmi ku base gareysan ma qamaartamno gambling alla dadka inta badan inta hal maalin suuq ku soo ordaan kadib waxaas oo kale sameeyaan anaga waxa arkaynaa in suuqa saaxiibayaal jihadiisu u socdo qaabka saxda marka hadalkaas waxa ku keenay in la sabro jadwalka la saxdo maalin walba waxa la sameeyaa adiga nafsiyan la fiiriyo wax ka qaldan hadii adiga wax ka qaldan waxyaabo badan ka qaldan karo qayb ka noqon karo xiriirka ilaahay la leedahay inuu yahay midaan fiicneen markaas oo kale waa dareemi kartaa meesha laga haysto in dhankaas laga haysto cibaadada soo marka adiga waxa waay suuqan mar walba u baahan kaliyan iyo awoodeen iyo aqligeen iyo xoogeen wax kaga keeneen oo ilaahay uu ma lahan waxa u baahanna ilaahay inuu garab siiyo so we have to obey Allah waqti badan inaad salaada cibaadada ku bixino insha Allah ta'ala hore u socon doona hadii ilaahay idmo saaxiibada sharafta la soo dhawaada waxa hore u sii gudgaleynaa falaqeynteena isbuuclaha halkan waxa idin kaga muuqdo lacagta loo yaqaan weekly-ga ka bilaabno euro USD sorry DXY isbuucan waxa u jeednaa in DXY ay sameyn doonto horta saaxiibayaal intaan ku hormarin istiraajirkii suuqa iyo waxaas isbuucida la soo dhaafay iyo isbuuci ugu dambeeyay suuq waxa arkeenay inuu san waafaqeyn waxa loo yaqaan istiraajir maxaa u sabab ahay maxaa ka dambeeyay sababaha ka dambeeyay maxay yihiin almost waxa arkaynaa saaxiibayaal waxa jira 10 oo ka bixin waxa loo yaqaan newsada suuqa soo saameeyay iyo qaabka suuqa uu saameynta ugu leeyahay isbuucida la soo dhaafay waxa suuqa saameyn xoogan ku lahaanayay waxa loo yaqaan headline newska iyo calendar newska almost waa naqaan calendar waxa news la sii filayo inuu dhaco in waxaas ku sii dushanaysa markaas ka taxadiray saacado ka hor marka soo bixi rabo kale laakiin newsada hadda socdo waxa waa news aadan filaynin isla markaas soo qaylinayo isla markaasna ay qasabta ina aware ka ahayd taas macnaheedu waxa waaye waqtigaaga ugu badan ina ku bixisay laba website Focus Factory-gan news soo bixiya oo qaybtan oo ka bixiya oo arkaysa news and last stories laho newsadan almost ina waqti gelisaan hada trade qaadad sidoo kale la socmaash newski isla markii soo baxo saameyn kugu yeelanaa lacag horta newsada inta badan saameynta xoogan ku yeeshto oo news haduu soo baxo saameyntiisa aan laga gambanaynin waxa waaye lacagta loo yaqaan GBP waxa arkaysa maanta waxa lagu leeyahay Canada Brexit xal sameysata lagu leeyahay ishak Brexit trade deal macna waxa waa inta ayado Europe aan ka bixin dawladda ka baxsan Europe inay heshiis la gasho uma ogolaana sharciga laakiin marka waxa lagu leeyahay waxay la gashay heshiis waxa ogaan Japan inay heshiis mar la sii gashay taas waxay ka dhigtay GBP istakano lacagtii waxoogaa fiican kor ugu soo kacdo hadda maantan waxa la dhahay in heshiis ay la gashay Canada marka headline newskaas ina la socotiin waa khasab si ay u la socotiin xaaladaha suuqa isla markaas trade-da qaadanaysan laga yaabaa in trade-ka istiraajirka uu ku waafaqay waa isdhiis trade-kan whatever inuu isalkii ma taaban karo TPU iyo gaara aadana waxa arkay mudumkan adoo trade-ka ku soo laabto su'aal la xayaalo sababtu marka da isweydiisid ma ahan in istiraajirkaaga uu qaldana in suuqa uu xumaay newsadaas jiro sidoo kale isbuuci la soo dhaafay suuq wuxuu ku xirmay ayadoo wada hadalkii socdo UK iyo AU wadamada Europe iyo heshiiskii Brexit-ka sidoo kale waxa arkaynaa
in dowladda Mareykanka odagii Trump inkaar Allah ku riday weli xaaladiisa aysan fadhinin Joe Biden weli xilkii ninkan uu dhiibin taasoo mar walba codeyn tiro badan dib content loogu sameeyay had su'aalka Georgia kala dib inta loogu tiri waa loogu guuleystay gobolo badan oo kala dib loogu tiri loogu guuleystay way jiraan marka ugu dambeyn waxay noqon doontaa in ninkan mar waxa waaye maadaama uu Donald Trump waxa doorteen ku dhawaad 70 milyan iyo xogaa qof aad doorteen so 70 milyan iyo hor intaas qof oo doortay wuxuu diidan yahay inuu hortooda isla markaas isku dhiibo almost hadhow wuxuu rabaa markuu baxaayo inuu dhaho doorashadan waana la gacan bidixeeyay waana la dhacay intee ka baxday taasoo u ogolaanayso in 2024 isu sharxi karo kaas wuxuu heli karaa isla markaas taageer fiican dib uu heli karaa oo lagu support gareyn karo marka hadda hadii hore iska dhiibo ama hore oo kan jabo taas waxay saameyn ku yeelan doontaa filashadiisa dambe hadii dib uu soo laaban lahay laakiin whatever oo dhaco Mareykanka Joe Biden wuxuu noqon doonaa madaxweynaha la doortay Mareykanka almost ma ogolaanayo ninkan xogaa loo sii dheeray waa laga yaabaa laakiin mar walba waxa arki doonaa hadii Ilaahay in ninkan xilka lagu wareejiyo sidoo kale daraad waxa arkaynay in بسفير كوي دهين كمبينيga oo pharmaceuticalka Mareykanka shaqeeyo inay codsanayeen license ku heli karaan waxa loo yaqaan ay ku suuq geyn lahaayeen waxa loo yaqaan vaccine-ka taas marka still maalinkaas galabkaas waa ogeedeen oo soo baxay news ku xafileen in gold dhulka u galo laakiin waxa ahayd kaliya dalbasho waa loo aqbal hadii la dhiilahayo kale almost waxaan ahaan lahayd anaga opportunity fiican suuqa kaga faa'iideysan karno isbuucan waxyaabaha suuqa saa'id nooga caawin kara waxa qayb ka noqon doona niyada markii laga hadlayo big deal oo ku noqon kara suuqa indhaha ina ku hayno loo baahan yahay waxa qayb ka ah arrimaha la xiriira vaccine-ka doorashada Mareykanka heshiiska ka bixitaanka ee ka dhaxay Europe iyo midowga Europe iyo Britain intaas heshiisyo insha Allah taala indhaha ku wada hayn doona sidoo kale daraad indhaha waxa dhacday in China oo hanjawaan Australia in cunqabateen soo ri doonaan taasoo lacagaha OUD dan insha Allah inay soo daataan macquul gal ka dhigi karo marka waxa soo dhan oo qurux badan oo isra jaro iyo balaayla filaha jira laakiin insha Allah taala anaga waxa almost bisinka qabsanayna isra jirka suuqa qaadanayna laakiin mar walba take care guys in la socotaan suuq isku daya niisada aan la filaynin economic ku jirin marka oo headlineska marka la socdo dawladmo in website-kan kala socotay website-ka kala aad taqaaneen oo Focus Live ka ahaa almost labadooda niisada almost second oo soo dhigaan marka insha Allah taala ina meesha kala socotaan rajaynina okay waxa hore u galeena marka falanqaynta isbuuca waxa arkaynaa suuqan lacagtan DXY in muddo ina ku jirnay indhaheena inay ka badbadato in laga yaabo habeenkii ina ku riyoono isla jirkeed macnaha si maalmo u fiirinayna taas waxa ka dhigayso hadii hadda dib u fiirino waxa arkan lacagtan dhaqaaq ina soo sameysay dhaqaaq falaag hadda waxa ay sameynaysan waxa loo yaqaan waa expanding channel expanding muxuu qayb ka yahay expanding wuxuu qayb ka yahay patterns ka suuqa continuation ka sii sameeyo oo hoos u sii wado saaloo kale halkan waxa arkaynaa had suuq inuu ka sameeyo taabasho koowaad halkan inuu ka sameeyo taabasho labaad halkan waxa arkaynaa hadda in middle section ay tahay taasoo u ogolaanaysa in suuq taabasho saddexaad dambe oo halkaas uu soo sameyn doono ugu dambeyn xilliga noqotaba waa kii soo taabtay macnaha markuu halkaas suuqii soo taabto ahelna 1 2 3 haddana maxaa filaynaa marka all the way down inay noqoto lacagtan loo yaqaano USD dollar oo ugu dambeyn ay meesha saas u soo taabato sida istaraatiijiyadku uu sheegay sababta dhaqaaqa soo dhacay falaaga hadda meeshan ka jiro waxay cadeynaysaa in lacagtan sii socosho dambe halkan sameyn doonto kadibna ugu dambeyn haddana waji noocaas oo kale hadii dib noogu abuuri doonto iyo hadii kala arki karno laakiin hadda maxaa arkaynaa istaraatiijiyadka suuqa hadda muxuu tusay waxa hadda tusay waxa arkaynaa in meesha middle section ay tahay oo middle sectionku maxaa ku garanaa middle sectionku waa dhameystiraha patternka si uu u dhameystiro istaraatiijiyadkiisa saxda ah soo ka dhiga high probability marka waxa arkaynaa halkan inay 1 tahay halkan 2 tahay laba taabasho suuqa hadda muxuu sameynaa fiiri muxuu ku socdaa fiiri wuxuu ku socdaa descending kadibna kaasoo ka dhigaya in halkaas uu dib u soo taabto kadibna soo noqoshada dambe halkaas in sameyso okay waxaas dhan sawir anagoo fiirinayna hadii Ilaahay idmo maxaa ka rabnaa hadda lacagtan DXY taas waxa ka sheekeynayna waa sawirka guud lacagta hadda ay ku socoto iyo qaabka ay u socoto hadii Ilaahay idmo okay hadii aan lacagta hadda meesha ay socoto iyo xaaladda ku socoto dib u sii jeegareeno si aan u helno waxyaabaha macquul galka ee dhici karo isbuuca soo socdo iyo berito ila berid dambe iyo insha Allah taala weegan waxa rajaynaynaa in week fiican noqdo sababtoo lacagaha dhan waxay joogaan meelaha high probability oo reversal ah lacagaha NZD-da qayb ay ka yihiin lacagaha dollarka ay qayb ka wada yihiin meelo wada reversal ay joogaan taasoo ka dhigayso in fursado qurux badan suuqa abuuri karo laakiin hadii newsadan inta badan insan noo carqaladeena ay sii jiraan weekan waxa laga yaabaa week kale iska sii dansan inuu noqdo
marka insha Allah tacaala suuqa waxaa lagu joogaa saaxiibayaal sabar iyo dulqaad qofkii aan sabar iyo dulqaad lahayn almost waxa arki doona inay sii baxaan maalin walba waxa aragnaa dad suuqa inta nala soo galaan haddana sii baxaan maxaa u sabab meeshan waxay ka filayeen iyo waxa ay u yimaadeen laba kala noqonayo marka adiga mar walba filashadaada ay noqon filashada degdega suuqa waxda dadka inta badan khasaaray waxa qayb ka am qofku u ogolaanay inuu trade-ka sii haysto waxa qayb ka noqonayo filasho degdeg tusaale kale trade hadda galaa 10 daqiiqo kadib wuxuu rabaa TP inuu helo macquul ma noqonayso suuqa adima maamushid suuqa israajir ku dhaqaaqa suuqa dhaqaaqyadiisa qaabay ku xirsalaysiin marka waxa la rabaa trade-ka inuu noqdo trade ah si haysa kartid hadduu ilaahay saaxiib yaal GBUSD NZD waxna ana fiirin doono don't worry insha Allah ila socdo waa maasantiin hadda waxa arkanaa lacagtan loo yaqaano DXY inay sameeyso taabasho koowaad labaad saddexaad afilayno maxay ku socotaa halkan maxaa ka socda hadda fiiri halkan waxaa sugaynaa lacagtan in ilaa weegi la caawila biri ilaa meesha inay soo taabato ayadoo abuurayso waxa loo yaqaano double button kaas micnaheedu waa saan in suuqa uu sameeyay kadibna inuu dib u sii kaco double button ku maxaa ku naqaanaa wuxuu qayb ka yahay reversal patterns-ka lugtii waatan double button kadib u sameeyay lugtii kalena taasay noqon doontaa hadduu ilaahay okay taas waa israajarka ay sameynaysa hadda maxaa arkaynaa marka halka inay ka samayso 1 2 hadda ugu dambeyn waxaa arki doona haddii ay xataa ay jibiso lacagtan almost mar saddexaad in halkan noo taabato kadib dib u laabato laakiin weegan waxaa ka sugaynaa in double button kan lacagta ay saas u taabato haddii ay jibisana waxay noqon doontaa saaxiibayaal retrace oo lacagta inta suuqa intuu jibiyo dib u soo laabto falaag samayn karaa kadibna sii socosho kale uu samayn karaa marka almost inaa kasii taxadirnaa loo baahan yahay isho hadduu ilaahay lacagtan haddii mar halkaas ay noo soo taabato waxay noo joogtaa meel strategy aad iyo aad u macaan oo aan dhigi karno high probable waaye double button with descending kale kusii dhex jiro descending weyn iyo descending kale kusii dhex jiro haddii strategy-kan kusii tagto insha Allah tacaala waxaynu abuuri doontaa strategy qurux badan waxaa ka suganaynaa almost lacag tira badan maahan ilaa halka inay gaarto waa iska konton bib wax ka yar insha Allah tacaala marka DXY weegan halkaan ka sugaynaa kadib taabashada dambe ee halkaas kusii aadi doonto this our high probability strategy in lacagtan saas ay sameyso sidoo kale waxaa macquul galka inay sameyso waxa qayb ka noqonayo inay mar kale jibiso haddii jibisana almost waxaa arkaynaa in meeshaan oo kale ay soo gaari karto oo saddex taabasho halkan kaga dhigi karto 1 2 kadibna meeshan taabashada dambe inta ka siiso retrace ka dhigtaas ku laabato laakiin wax badan oo saas macquul gal ah inay dhacaan ma ahan haddii ilaahay insha Allah weegan waxa inda ku hayn doonaa lacagaha USD-da waxay abuurayaan fursado aad iyo aad u qurux badan insha Allah tacaala nasdaqna fiirin doonaa saaxiibayaal don't worry lacagta weega noogu xigta aan fiirin haddii ilaahay lacagta weega noogu xigta waa lacagta loo yaqaano euro USD weeg walba marka aan falaqeyno lacagtan loo yaqaano lacagtan DXY waxa noogu xiga waxa aan falaqeyno lacagta ayada cagsigeeda ah cagsi u dhaqaaqaan loo yaqaan euro USD weegan maxaa ka filayna haddii ilaahay euro USD waxay sameynaysaa ayadana ujeedan 1 2 double top oo mini ah oo ku sii tagays ascending strategy ah haddii ay jibisan in saddex taabashadaas dambe ay soo dhamaystiri doonto kadibna lacagta strategy-kaas quruxda badan ee salka ka sugan doonaa haddii ay boo'eedmo okay 4 hour imaan ayadana aan fiirino qaabka ay waxaan ku dhici karaan hadda halkan waxaa arkaynaa lacagtan loo yaqaan euro USD inay taabasho ka sameysay halkan inay taabasho kale ka sameysay taabashadan dambe waxsaan inay sameysaa suugayna maysa dhicin micnaheedu waxay la macno tahay double button double top dib ugu laabanaysaa double top-ka haddana maxaa lagu tago fiir strategy-ka lagu tago fiir 1 ay 2 ay sii socosho dambe 3 1 2 3 1 ever dhamaystirato dhaqaaq koowaad qofkii risk soo qaadanayo qofkii reduce jecelna inuu first flag uu lacagta ka helo kadibna sii socoshadas dambe ee quruxda badan inuu ilaa menosmes good taas waa probability-geena ka suganayna weega hadduu ilaahay sidoo kale waxyaabaa macquul gal waxaa qayb ka noqon karo in strategy-kan ay dib usii dhamaystiran karto saan ay u socoto kadibna halkaas ay ku taabato aan kan taabanin kadib markay strategy-kaasna halkaas sorry aan hal mar qalinkan iga tiro okay in micnaha flagan ay sii ascending-kan ay sii dheereysato let's see sorry halkan ugu celi in ascending-kan iska sii dheereysato وقاب نوعان وكله أكو تكاكودا معنا ساس أيضا أنا تابنين ودنبنا مركي هالكاس تابت إيكا أورت 1 2 3 and with double top وقروح بدن إنك سي سميسو أكيد من ماشي كسر دعوة أرجينين هدولان وأيضا إن possibility معقول قلك بقول كي بكونتن كولي بهدولا هدمو أم فيلكرنو لكن ويجا بلا وجيس وحكى فيلنا لعتن يورو USD إن سرجل كأنت لما استرتو النقاشات نظيف كصاص ميسو صوابت مرك ماشي أجيبيني اسمر الفهم سوق مركم مال إنه جبي أركتد ومرة استرجل سمعنا استرجل هذا أركينين لكن مرك أقول لما استروك أو أركد دون النتيجة دي سيد خروح البدن أسمين دون هدو لهن أوكي ويجي لعقت نوجي حتى أنفيرين الساحب يردو لهن وحنا نوجي حتى العقل يقانو GBP USD
GBUSD weegan waxay abuuri doontaa fursad kale oo aad iyo aad u qurux badan waa haddii uu doolarka weji uu yeesho hadduu ilaahay idmo sidoo kale waxaa arkaynaa GBP index inay ayadana joogto meel high probability marka la fiirinayo mataaf let's see hal mar aan intuso mataafkayga si isbuucan waxyaabaha macquulgalka ah iyo lacagaha sida ay u wada falanqaysan yihiin okay shaashada mataafka in la share gareynayaa good halkan hadda ujeedaan waa mataaf.net lacagtan hadda falanqeynayaan waa USD waxay sameynaysaa ujeedin dhowr batankan quruxda badan iyo structure-ka qaabka ku dhameystiri doonta haddii uu lahaydno okay wala diiri dhimala wala duubaya YouTube kaas soo dhigi doona insha Allah marka waxa arkaynaa in dhowr batankaas ay sameysatay ay haddana ku socoto ujeedin structure-kaas quruxda badan taawashada dambe one ever halkaas ku dhameystirnay waxaan quruxda badan inay noo sameyso ayaa filaynaa week walba marka aan lacagaha falanqeynayo idin kali waxa idin tusaa waxa loo yaqaano lacagaha iyo beeriska laakiin indexyadu si gooni ah oo mid walba u soo falanqeeya marka indexka soo arka iyo wajiyada ay leeyihiin kadib lacag walba jaha u diraa duulahayn marka hadda waxa arkaynaa weegan in USD waxaan quruxda badan sameyn doonto euro ayadana inay sameyn doonto the same way oo dowladbatankan dib loogu celiyay dhaqaaqa soo dhacay falaaga hadda dhacayna mar walba waxa ogjiin logicaasna isticmaalno in maadaama falaaga uu tiro batan in lacagtan dib loo sii awood ay ku sii socoto islahayn laakiin almost marka halkan soo taabat kadib falaaga sii socoto taas micnaheedu waxa waaye in euro ilaa bari ilaa caawi ilaa bari dambe kale inay halkan dambe soo dhameystiri karto waxyaabaha sidoo kale macquul galka waxa qayb ka noqonaya iyadana in euro sideed meeshan ee ka tushadaal qaadato laakiin waxay sidaal ugu qaadan kartaa haddii heshiiska ay la galayaan Britain iyo ayada uu noqdo mid u fiican euro hadoo aan labada ku heshiiyeen xitaa in heshiis fiican uu noqdo waxa arkaynaa in lacagta saaciidi doonto duulaa idmo lacagta hadda hortiin ka muuqato waa lacagta loo yaqaan GBP ayadana maxaa indexkeeda aan fiirino GBP waxa ka arkaynaa 1 2 3 ay dhaqaaq falaagan laakiin falaag weyn waaye falaagan hadda almost ana maxaa ka suganaya falaagan waxa ka suganaya in hamar taabasho dambe halkaas ay soo dhameystiro asoo ka sameynayo 1 2 3 qurux badan 1 iyo 2 iyo 3 kadibna structure qaabkaas quruxda badan ay ugu soo daato sidoo kale haddii uu jabiyana almost surprise iguma noqon doonto waxaa arki doonaa in lacagta ay noqon doonto double top qurux badan kadibna asaas igu soo daadan doonto haddii uu lahayd laakiin this is probability-ga ka filanayo weegan GBP sidoo kale maxaa ka dhigi kara in GBP halkaas soo taabato waxaa GBP halkaas inay soo taabato ka dhigi karo haddii ayada heshiiska ee la galayaan euro uu noqdo mid ayaga u wanaagsan almost waxay si fiican u ogolaan doontaa waxyaabaha hadda si fiican almost u doodayaan waxaa qayb ka ah inay helaan kalluumeysiga xorta ah iyo barnaamijyo noocaas oo kale marka insha Allah isku day inay si fiican wada akhrisaan si ay ula socotaan xaalad wadan walba dhaqaalihiisa iyo waxyaabaha ka taagan si fiican wada fiirina haduu ilaahay okay lacagta kale aan fiirino JPY maxaa ka filanayna JPY waxaa ka filanayna 1 2 3 way soo dhacday falaag fadhig halkaan ay ka laabatay hadda maxaa arkaynaa dhaqaaq had correction-ka inay isku ka dhameystirto kadibna halkaas ay tagto macna JPY almost in halkaan dib u soo taabato waxay ka caawinaysaa ayada almost waxay alliance leeyihiin labadan lacag lacagta loo yaqaan USD alliance yihiin so almost isku structure sameeyaan laga yaabay hadda in DX waa halaan dib u dhaqaaqad in hadda aydan soo dhacdo ay la soo dhacdo mar inay kala hormaraan kala dib maraan laga yaabay okay weegan sidoo kale lacagta aan filayo waxyaabaha quruxda badan ka filayo waxa waaye cad inay san isugu ka dhameystirto 1 2 3 with as descending kan quruxda badan kadibna structure-kaas ay abuurto ayadoo hadda ka soo laabatay laba taabashadaas kadibna hadda waxa ka sila in saas sameyso sidoo kale waxa arkaynaa halkan lacagta loo yaqaano CHF iyo euro isku dhaqaaq waay waxay sameynayaan same structure wada aragtaan fiir euro meel ay joogto iyo CHF meel ay joogto ayadana waxa ka filaynaa in dalbatankan dib ay ugu laabato kadibna structure-kaas quruxda badan ay noo abuurto taas waxay ka dhigaysaa haddii salka ay ku sii socoto dadka lacagaha ku jiro NCD CHF in dulqaad badan u sii baahan doonaan sababtoo ah CHF iyo NCD ya awood badan lacag ahaan markii la hadlayo sidoo kale lacag walba ee CHF la socoto way ka qaalisan tahay lacagaha kale lacagaha u qaalisan waa naqaanaa CHF beeriska inta badan hogaaminaysa waxa arkaynaa in lacag fiican ay yihiin tusaale kale GBP CHF oo kale waa $102 euro CHF oo kale waa $100 ka qaalisantaa lacagaha kale marka lacag awood badan waaye sidoo kale waxa arkaynaa in dowladbatankaas haddii inta sii socoshada dambe is sameyso waxa arkaynaa in CHF lacagaha dadka NCD CHF ku jiraan in almost xogaa dulqaad kale usii baahnaa in lacagtan structure-ka iska soo dhameystiraay maybe way dhici kartaa in ayada lacagta hadda meeshan ay joogto ay dib ugu kacdo ka dhigato dhaqaaq waxa loo yaqaan Steve falaag ay sii socoshadaas dambe ka sameyso inkastoo u fiirina dhaqaaq soo dhacay falaaga inuu ka weyn yahay dhaqaaq okay sidoo kale lacagaha aan week 8 beer saas u diyaarsada week walbo saas ay ugu diyaarsan yihiin kadib go'aan ka qaataa iyo lacagaha suuqa fiiriyo
halkan hadda waxaa arkaynaa lacag kale loo yaqaano OUD CHF OUD CHF maxaa ka fiirinayna haddaa fiirin tusaale kale OUD CHF markaa inta fiirin oo kale waxaa arkaynaa sawir aan ugu wanaagsanayn dadka lacaga OUD ku jiro kale tusaale kale maxaa arkaynaa fiiri meeshan dhaqaaq garab madax ay garab kale in lacagta OUD ilaa halkaas dambe si tagi karto macquul ay tahay waa marka sawirka guud ee suuqa la fiiriyo ayadoo la iska indhatirin sababta korashaka meeshan ka dhacay kan waxay isku eg yihiin kuufac ah taasoo ka dhigi karta in AUD dib socoshadaas dambe sii samayso okay sidoo kale waxaa arkaynaa marka haddii aan kasoo tagno halkan waxaa arkaynaa 1 2 lacagtan dib u jebisay soo dhaabatay falaagan large haddii noo samaysato in lacagta halkaan ka sugayso probability waa kana sidoo kale laakiin iskama indhatiri karno suuqan in lacagta ay samayn karto ee halkaas kusii tagi karta haddii biidmo insha allahu tacaala lacagta ugu dambeysa fiirin NZD weegan waxay samaynaysaa waxyaabaha indhaha laga qabsan karin weega hore saasoo kale samaynaysa israjaro aad iyo aad u qurux badan ay soo jibinaysa hadda waxaa arkaynaa in dowladtabkaas qurux badan ay joogto halkan waxaa arkaynaa 1 2 3 inaad samaysay taabashada dambe halkan ku samaysay way jibisay hay halkan maxay kasoo laabatay hadda fiir weli noqosho fiican ay samaynaysaa oo ah mini double top ay ka samaynaysaa hadda halkan fiirisaan oo kale waa kan mini double top dhaqaaq falaag dhaqaaqaas inay samayso NZD ka filayna hadduu ilaahay idmo lacagtan week tii soo daadato waa mar walba dulqaadkeeda rabtaa kaliya laakiin indho ku hayn insha Allah tacaala inay soo daadato ay rajaynaynaa marka hadda waxaan meeshan kusoo wada koobnay dhammaan lacagaha indexyada iyo qaababka aan ka filayo israjarada hadduu anu NZD san ka filayo maqasab ma aha lacag NZD ina buy u diro marka waxaan rabaa anam sawirkan guud ee suuqa uu suubinayo lacag walba indexkeeda maskaxda anu ku hayo inaan ka fikiro lacagaha kale waxa ay sameynayaan sidoo kale halkan waxaan arkaynaa 1 2 3 inay ka samayso qurux badan marka insha Allah tacaala saas oo kale idinkana u falanqaysataan ay sawirada guud suuqa uga qaadataan rajaynaya hadduu ilaahay idmo dib ugu soo laabano lacagtan loo yaqaan GBP hadda arkayna sawirka ay sameynaysay anagoo GBUSD sawirkeeda qaadanayna ayadana aan ka fikirno GBUSD fursadda ay abuurayso GBUSD waxaa arkaynaa 1 2 3 qurux badan inay samaysay inay dib u sameynayso waxa loo yaqaan double topkaas quruxda badan dib hadhown halkaas noogu soo daadan doonta ka filayna hadduu ilaahay idmo 1 hour dib u tagno GBUSD iyo meesha entry ay ka samayn karto GBUSD waxaa arkaynaa halkan inay ka samayso 1 halkan ay ka samayso 2 haddana dib ugu laabanaysa taabasho saddexaad hadda hadda arkaysan sawirkaas uu yahay ascending aad iyo aad u qurux badan inuu ascending yahay maxaa ii cadeynaya ascendingku waa suuqa janjaarkaas u socdo kale fahme descendingkuna waa wax taas oo kale u socdo falaagyada continuationkana saas oo kale almost sameeyaan ilaa ma ahe kuwa waxa loo yaqaano expandingka iyo symmetricalka intooda kale saas u shaqeeyaan marka waxaa filaynaa ayadana GBP hadduu ilaahay idmo in waxaas quruxda badan ay noo sameyso inta ila beri iyo in is diyaariso kadibna aan dhahno 1 2 3 qurux badan qofkii risk qaadanaya se u taala aan reduce ka sugan doonaa ko suuqan isku haleen bariyahan ma lahan first flag of 15 minutes hadaa helay xitaa waa qaadan doonaa hadduu ilaahay idmo insha Allah tacaala kadibna ilaa dhaqaaqadaas quruxda badan aan lacagtan ka filaynaa lacagtan GBUSD GBY waxaa laga filaa inay daataan ku dhawaad kun bib laakiin almost dulqaad badan ay rabaan iyo sawirka suuqa sida waxa waaye kii dhaqaaqo waa laakiin wuxuu sameyn doonaa markuu dulqaad ka dhameeyo inuu dhaqaaqa laga yaabaa markaan jabin lacagaha dhammaan wada ilaaliso alertiga ku wada xiro hadda ajaanus u leedahay si soo soco okay lacagtan hadda falanqeynayna week waxa waaye NZD JPY waa u falanqeynayna sababta waxa u falanqeynayna weegan lacaga NZD fursad aad iyo aad u abuuraya hadda fiirsan hadda lacagtan 1 2 3 taawashada dambe saddexaad maxay ku sameysay labadan candle yaa yaqaan labada candle loo yaqaan retrace way oo ah candle buy candle sell israjari jibiyaan kiisa kala dib u soo laabto ay markay soo laabtay maxay sameeyeen first flag clear waxa way sell JPY hadda maxay arkeen NZD JPY maxay ka kooban tahay laba beer ka kooban tahay beer oo ah NZD iyo JPY NZD maxaa ka filayna weegan daadasho qurux badan JPY maxaa ka filayna kor kac badan inay sii sameyso taas marka waxay ka dhigaysaa in lacagtan israjar weegan ay leedahay fursad qurux badan haddii ilaahay inkastoo lacag NZD ay hogaaminayso aysan qiimo badan ay lahayn laga yaabo in $63 ay tahay boqolkeeda bib laakiin waa iska qaadanayna aniga we don't give shit okay maxaa arkaynaa hadda marka suuqa inuu jabiyay israjarkeeni dib ugu soo laabtay large flag clear no abuurayo qofkii risk soo qaadan lahaa almost candle-kan saddexdan candle inuu soo qaatay ahayd saddexdan candle waa naqaanaa oo waxa loo yaqaanaa evening star inkastoo okay waa yihiin inuu suuq sal inuu noo sii cadeynaa ay yihiin marka insha Allah tacaala ani waxa ka qaadan doonaa in break out kaas ugu sameeyo waliba candlada uu yahay candle banaan ku xirmakiisa kale uu sii noqdo kadibna insha Allah tacaala waxa rajeynaa ilaa ay lacagtan almost weegan horta ilaa halas inayna siiso haduu ilaahay okay saaxiib ya lacaga waa u soo soconaa don't worry guys
please degdeg iska dhaafa dhammaan lacagaha week diyaarsan oo wada falanqeyn doona haduu ilaahay lacagaha dhan way diyaarsan yihiin marka insha Allah tacaala saaxiibayaal saas la socdo okay week lacagta nagu xigta hadaa fiirino waa lacag kale loo yaqaan NCDCHF sida hadda ka hadlayeen NCDCHF waxaan dulqaad badan u sii baahan dadka lacagta haysto oo ani qayb ka ahay 17 bisha soo qaatay still waa haya lacagtan insha Allah tacaala waa sii hayn doona ilaa iyo waxa waaye strategy iyo TB-ga ka sugaa ka hela haduu ilaahay idmo maxaa arkayna hadda lacagta inay sameysay waxaa arkayna double top oo la jabiyay oo maxaa lagu jabiyay fiir labadii kan dhalay taqaaneen hadana wala soo celiyo suuqa hadana dib wuxuu u laabtay inuu sameeyna strategy kale suuq waxaa arkayna markuu lacagta isdiyaari strategy-kiisa uu soo daato kale oo hadana aragtay inuu suuqi laabanayo taas micnaheedu ma ahan suuq inuu kala fireenayo micnaheedu waxa waaye in suuqa uu sameeyna strategy-kaaga inuu strategy-kii ama lacagta confirmation-ka ku qaadanaysay in confirmation kale kugu soo daray hadda su'aalo kale maxay sameynaysaa suuqa hor sawirkiisa guud ah fiirin la sii hal mar suuqa waxaa arkayna dhaqaaq yar falaag dhaqaaq kale xoogana dhacay dhaqaaqana wuxuu ka dhigi karaa NZD inay sii socoshada dambe ilaa halkaas ay sameyso oo waxaan badnay inay dhacaan good waa sawirka suuqa uu sameyn karo macquul galka ah maxaa kale hadda marka 4 hour imaana arkayna fiir strategy-ku kugu sii daray lacagta marka fiirisid waxaa arkayna lacagtii soo daadatay markay soo daadatay hadana maxay dib u sameys isha ascending qurux badan ay ku abuureyso double top oo aad iyo aad u qurux badan aye saddexda kan dhalna u jeedin lacag NZD-na almost wada sameeyeen maxaa u baahanaa marka trade-ka inaan qaadano trade-ka hadii qofka inuu qaato u baahan yahay laba midkood laga yaabo in suuqa inuu halka hadana dib uga laabto uu saas kala soo sameeyo hadana soo daato so you have to take care falaaga kuwaad iska sugo no problem suuqa ka ordimaayo lacagta yara ah haysa saaxiibayaal waxaan ka codsanaa in suuqa ka ilaalsataan insha Allah tacaala sababtoo ah suuqa ka ordimaayo hadii trade-ka halka ka soo qaadatid dib kugu la laabto micnaheedu waxa waaye suuqa inuu sameyn karo falaaga hadaa ka sheekeynayno kale uu si socoshada sameyn karo marka first falaaga ka sugano oo meeshan ah kadibna meesha ka sii qaadan doona hadda halkaas ka soo qaadatay xitaa suuqa almost xogaa fiican ka helaysa marka don't worry halkaas ina ka soo qaadatay ilaa halkaas suuqa u soo raacay waa 347 bib way inta mi ku taala marka 347 bib laga yaabay hadda in meesha hadda ka qaadatay sidoo kale in suuqa meelaamku ima dib inuu SL-kaaga u soo taabto oo kaan jibi 300 dhan aan nacdid marka iska suuqa strategy-kiisa intuu soo ka dhameystirayo haduu ilaahay ma qaadan doona NCDCHF strategy-kaas quruxda badan ee noo abuureysa ayadana good lacagta nagu xigta hadaa fiirino waa lacag kale OEDCHF OEDCHF hadaa fiirino waxaa arkayna meesha inay sameynayso sawirkaan ay sameynayso taabashadaas kale dib ugu abuureyso suuqa ka suganayna haduu ilaahay okay maxaa arkayna hadda meesha hadaa fiirino kala dib sawirkaan ugu soo laabana lacagta sawirkaan dib ugu soo laabana suuqa waxaa arkayna in lacagtan OED ay soo sameysay CHF dhaqaaq hadda ay sameynayso symmetrical triangle kaasoo ka dhigayso in dhaqaaq kale xoogan oo ilaa ay korkaas ay ku sii tagays inay sameynayso خلاص waa imis bib waa 8 bib almost good saaxiibada sharafta leh waxaa codsanayaa in waqti waxaan insiin doonaa su'aalaha iyo jawaab ku habeeno marka insha Allah tacaala guys xiisada iyo su'aalahan qoraalka badan dib noogu dhig insha Allah I will give you chance sida lacagaha u kala awood badan yihiin waxaa jirta 10 ama taaf ka sameeyo YouTube ka yaal walaal dib u fiirin kartaa candle entry laga qaatana ayagana 10 ka sameeyo jiro ayadana YouTube ka yaalan so don't worry guys insha Allah falanqeynta asii wadan insha Allah sababta ما جعل الله في قلبنا الله لو قلبي ملي إن قرار كاجا أخريو كاجا جوابه إن وحن سي وذا إيم صورة جلس إن شاء الله مركا أساس من إن شاء الله مركا حركنا OEDCHF إن العقد هالكاس إس تكتو تاسو كده symmetrical كهذا إسمينه symmetrical triangle إنه يمحكوا أجانا بحكوا أجانا أساس ثانو سمية فيري تاسو سمية أو مرول بمعنى أنكل كاسو سمية موجودة كده وسوق سيجب صدا سوق أنتو كيمي على فيري بس أوكي aan ka sii socono lacagta OEDCHF fursadaas in noo abuurta ka sugeena haduu ilaahay waa high probability geena fursad kale ay ka banaan macquul gal ah ma jirto sababta OED hadda waxa arkay in xogaa yar ay si dhiman tahay isku soo dhameystirays ilaa dib ay inta halkan ugu soo laabato haduu ilaahay okay lacagta kale noogu xigta ayadana waa lacagtay OED card waxay abuureysaa waxaan sameynaysaa fiirin ayadana waxa arkayna OED card in taawashada guud halkan uu suuq yahay halkan hadda waxay ka sugeena weeyga hadda inay noo soo sameyso waxaan ay sameeyso quruxda badan fiiri double top was ascending qurux badan ay soo daadatay markay soo daadatay hadana maxaa dhacay dib ah suuqii loo celiyay taasoo ka dhigaysa micnaheedu maxaa ma taqaanaa soo saas yeel suuqi muxuu sameeynaa marka
lugtaas kala ku dhiman so don't worry haddana suuqa hadda wax candle uu ku xirmay markaa fiiris 4 hour maxaa arkaysaa inuu yahay high test candle ku muxuu yahay wuxuu qayb ka yahay candlada suuqa kala wareejiya ee muujiya in suuqan kala wareeg fiican uu sameynayo so qofkii risk qaadanaya oo almost 10 copy ila 10 copy ogol inuu qasaaro tradekan 30kaas biib oo kale almost hadaa ogasha tradekan candleka xigo haddii uu xirmo kale waa la qaadan karaa candlekiisa kala doon noqdo even star qurux badan noqonaysa waa la sii qaadan karaa almost adoo mar walba ka taxadirayo rejectionada suuqa meelahan inuu ka sameyn karo marka insha Allah taala OUD CHF OUD CAD fursadaas quruxda badan ka sugeynaa sidoo kale waxa hadda dib u xasuusano CAD waxa ka sugeynay inay sameyso in xogaa yar hoos u sii dhac ay sameyso taasoo ka dhigayso beerkan OED kaada ka kooban yahay inay kor u kac sameyso marka haddii maadaama kor u kac maxaa dhici karo in strategy-kan dib usoo dhamaystiri karta oo ah double topkaas taabashadaas aad iyo aad u qurux badan halkaas intaas dib u laabato falaagaas kadib halkaas ayadana ka soo qaadano marka fursad kale ayadana halkaas ka jirto waaye indhaha la iska indhatirin insha Allah ayadana laga taxadiro micnaheedu waxa ka wadaa suuqan haddii uu inta strategy-kaaga ama meelaha ka qaadatay uu kula jabiyo meesha uu socdayna si ogaa kartaa la rabaa in suuqa meesha uu sii socdayna ogaan kartaa la rabaa sidoo kale inta waa laga celin karaa laakiin meel isha macquul kale in laga celin karo waa ayadana almost laakiin suuqa wuxuu aad iyo aad u qurux badnaan doonaa marka meesha kala wareegaas qurux badan oo ka soo sameeyo ama toos halkaas soo taabto haddii marka adiga reer risk aad ahayn waxaa sugan doontaa first flag oo strategy-kan bananka uga soo baxo halaas haddaa sugatid almost ayadan xogaa fiicana ku haysataa marka 220 bay waa haysataa marka don't worry in suuqa ka ordaya la iska dhigan saaxiibayaal yaa lagu ordin tradeed aan diyaarsanan yaa la qaadanin take care okay sidoo kale weegan waxa qayb ka lacag falanqeynay lacag kale loo yaqaan euro JPY euro JPY maxaa ka filaynaa euro hoos u dhac ka sugaynaa JPY waxa ka sugaynaa kor u kac good taas waxay ka dhigaysaa marka lacagta inay sameysay 1 2 3 dhaqaaq correction miran correction kana kale waxa loo yaqaano running general oo ahay kadib suuqii muxuu sameeyay suuq taabashada dambe halkaas wuxuu ka sameeyay ascending kale taas ka dhigay suuq inuu dib u soo daato maxaa sameeyay marka dhaqaaq maxaa hadda abuurmay large flag large-ga inuu halkan markuu abuurmo saddex taabasho hadda ka risk inter ka qaado adoon hal ilaa halaas oo kale la sii socon karo sababtoo ah euro waxa filaynaa in kor u kac soo sameyso selkeeda ma tira badno ilaa ay halkan xataa haddii aan ka qaadano TB1 kan oo kale almost waa nagu filantaa haddii risk ka soo qaadano ilaa ay halkaas ku imaano oo 183 biib ah haddii ilaahayd ma euro JB waxaas ka filaynaa haddii ilaahayd mo maxaa noogu xiga lacagta weeyga noogu xigto waxay inoo maraysa lacagtan loo yaqaano euro JPY insha Allah taala ayadana fursadaas ka sugeynaa haddii ilaahayd mo saaxiibada sharafta la weegii hadda la soo dhaafay suuq wuxuu ahaa suuq loogu talagalay scalp oo micnaheedu ahaa 30 biib suuqa dakesh ka carar waa micnaha markaas oo kale waxa waaye in suuqa laga digtoonaado waaye sababtoo ah waxyaabaha saameynta qayb ka ahay niishadaas oo degdeg aan la filayn oo soo baxayeen almost lacag istirajarkooda dib u bedelay lacag istirajarkeed diyaarsan oo high probability ku qaadatay laga yaabo lod fiican saarato is dhahday tan waxa waaye tii oo xusulka laga leeyahay waa in kula gadoomayso marka almost take care weegii la soo dhaafana saas oo qaabka loo macaamilayo waxa in lacag la iska gareeyo 30 biib 25 biib in ka raasatid TB-ga ka xiratid asal inta uu keensatid dhahdaayay iska soco insha Allah marka insha Allah taala weegan waxa rajaynaynaa in weeg ka fiican uu noqdo weeg hadda la soo dhaafay wuxuma kii ku xoreeyay saas oo kale xoga yar ka fiicnaa laakiin wuxuma asigana almost waxa arkaynaa in weegan fiicnaan doono hadduu Ilaahay idmo marka insha Allah taala let's be patient lacagta weegana waxay tahay dib u fiirina saaxiibayaal waa lacag loo yaqaano oo USD bear ah NZD USD weegan maxaa ka filaynaa haddii Ilaahay idmo insha Allah taala okay weegan hadduu Ilaahay idmo lacagtan loo yaqaano NZD USD waxa ka filaynaa in wax noocan oo kale ay sameyso oo salkaas quruxda badan ilaa halkaas ay noo soo sameyso hadduu Ilaahay idmo استراجل كذا يسوق waxa uu sameeyay waxa arkayna in 1 2 3 qurux badan uu sameeyay ascending kale oo meeshan ka sii dhax abuurayo u soo laabana 4 hour time frame oo kala soo fiirino 4 hour time frame ka iyo wuxuu sameeyay halkan waxa arkayna suuq inuu ka sameeyay 1 halkan wuxuu ka sameeyay 2 halkan wuxuu ka sameeyay fiir taabashadii saddexaad hadii halkan waxa ka dhacdana 1 haddana maxaa ka dhacay 2 haddana maxaa ka dhacay 3 1 2 3 1 2 3 high probability trade istirajarka haddana meesha uu joogo maxaa waaye meel high level ah oo lacagta rejection fiican laga filay inay ka sameyso Ilaahay idmo in istirajarkaas quruxda badan inay ka sameyso la filay Ilaahay idmo by the way inta ay ka dhib ii sheeg lacagtan DXY iska dhameystiras laga yaabo in suuq marka halkan taabto si kac dambe uu sameeyo halkaas kale ka soo taabto xalaas inuu ismu mashquulay kadibna lacagta ay soo daadato mar walba insha Allah taala soo istirajarkaas ka suganayna marka trade-kan dadkii raba inay qaataan laba nooc ay noqon doonaa haddii Ilaahay qofkii risk inuu trade ka qaato rabo iyo qofkii reduce inuu ka qaato rabo
labadaas qof qaabkay ula macaamil lahaayeen hamar meesha ka fiirnayna hadduu ilaahay idmo kadibna waa kasii soconayna lacagtan fursad ay abuurayso oo kale lacagtan loo yaqaano NZD USD haddii aa u baahan tahay waa bir NZD waa arkayna hadda indexkeeda markaa soo fiirina meesha quruxda badan ay joogtay marka laba midkood iska leh lacagtan qofka inta kasoo qaadan kara riski oo isa qaadana mar walba asay u taala laakiin almost waxaa sugan in strategerkan la soo jabiyo first flag aa sugano oo 15 minutes 1 hour qofkii sugan karo kadibna lacagtan halkaas haddaa ka sugatid ilaa halaas aa sugatid ilaa halkay qaadan doontaa hadduu lahayd ma 380 bib marka 380 bib yeyse kaam niyijibsiinin 10 bib inta qaadatay stop loss maaturan kaaga dhadhaco marka sugo lacagta strategerkan quruxda badan intay kaaga dhamaystirayso haddii xitaa candlekan uu soo jebiyo suuq strateger fiican uu kusoo jebiyo kiisa kale wuxuu ganyaa aragno aa sugano kiisa kale ilaa 10 minutes 15 minutes oo kale aa sugano in asagana selfies kusoo kadib kala qaadan kara riski waa naftirkeed almost waa kasii qaadan karnaa meesha ayadana hadduu lahayd qofkii ku jira almost stop loss uu leeyahay don't worry wixii dhacay dhacayaan ka socono lacagtaas waxa ku xiga lacag loo yaqaan euro NZD waxay qayb ka tahay lacagaha weeg oo aad iyo aad high probability strategerka ka sugeeno lacagtan euro NZD hadda dib u fiirino anagoo ka duulayna sawirada ka xasuusano labadii lacagood ee ka kooban tahay lacagtan oo euro iyo NZD waxa ka sugeynaa buy qurux badan whenever NZD buy qurux badan sell qurux badan whenever euro NZD uu soo aado euro NZD waxa arkayna in buygaas quruxda badan ay sameynayso sidoo kale lacagtan loo yaqaan euro NZD iyo euro OUD waa laba lacagood oo lacagaha bac khafiifka la dhaho macnaha labada lacagood lacagaha la socdo waxa waaye OUD iyo NZD la socdo laba lacagood oo xitaa haddii ay kula boodaan xitaa wax badan aysan isha iska haysan kartid culays badan aysan lahayn dalad fiican ku galin marka insha Allah tacaala waxa hadda sameynaysaa arkayna haddii sawirka aan fiirino suuq waxa arkayna in strategerkan uu double topkan double buttonka dib ugu soo laabtay uu sameeyay awal dib u jabiyay full retrace flag yar halkan ka sugaynay maxaa dhacay flagii descending oo nagu noqday descending kan hadda muxuu sameynaa fiiri 1 2 3 saddex taabasho qurux badan halkan muxuu ka sameeyay 1 2 3 ay hadda muxuu sameeyay double button qurux badan clear ah double buttonkaas clear-ka ah marka maxaa ka suganaynaa hadduu ilaahdo weegan waxaa ka suganaynaa buygaas quruxda badan ilaa halkaas ilaa intee bib waay waa kun xogaa bib laakiin almost kun xogaa ilaa halaan kala ka suganayna anaga hadduu ilaahay idmo mar walba insha Allah tacaala trade-ka skill gareyno weegan hadduu ilaahay idmo si fiican ula soconno qofkii entry ka qaato kale in lodkiisa uu macquul ka dhigto uu trade iska haysto meesha fala ka gasho boo xogaa intuu isalka ilaa ay meelaha soo socon doonta weegan hadduu ilaahay sababta beerkan waa beer NZD ee la xiriirto euro waxa arkeen in xogaa yar si socon doonto lacagaha GBP-yada iyo eurooyinka laba lacagood ka jihad duwan su'aalo kale euro waxa arkaysaa abay ka suganaysid laakiin euro NZD oo sel ka suganaysaa arkaysaa taas macnaheedu waxa NZD-yadaas keenayo marka insha Allah tacaala hadda waxa arkaan double button high strateger oo meesha ay joogto suuqa insha Allah tacaala lacagtan strategerkaas quruxda badan ka suganayna one more time haddii ay si dhaqaaqadana waxa arkaynaa in halkaana si taabato saana kale si sameeyso laga yaabo in euro ayadana si sugato kadibna asaas dhaqaaqadaas quruxda badan dib noogu abuurto marka euro NZD weegan waxay noqon doontaa lacagaha zaidka indhaha ugu hayn doono oo waqti ugu badan ku bixin doono sababta xogaa fiican ku jira hadduu ilaahay okay halkaas hadda uu guurno lacagta weegan ugu xitaa fiirino lacagta loo yaqaan OUD USD maxay sameynaysaa weegan aan fiirino hadduu ilaahay OUD USD waxay sameynaysaa strategy aad iyo aad u qurux badan sidoo kalena ayadana waxa arkaynaa in halkan trailanka hadaan ka bilaabano 1 2 3 anagu awal ka sugeen dhaqaaq dib u soo sameysay strategy-kan awal ka sugeynay waxay sameysay hadan dib u laabatay maxay abuuraysaa fiir hadan strategy ascending qurux badan ascending hadaa maqashaan oo kale hada meeshan waxa arkaynaa 1 iyo 2 qaybtan dhabaxa maxaa laga sii abuuraa hadana ascending kale oo lagu soo sameyn doono saddex taabasho kale saddex taabashada suuqa markoo dhameystir maxaa dhacay hadana ugu dambeyn halkaas saddex taabasho noqon doonta soo almost waxa sameyn doona marka taabashada hal xaba ka tirsanayna labadan maadaama dhowl top ay tahay oo strategy-ka uu jibid dib u soo laabtay 1 2 3 inay noqonaysa halkaas hadii noo gaarto ama haddii xataa taabashan dambe ay dhameystirto oo 1 iyo 2 iyo 3 uusan halkaas u sii gaarin oo halkan ay ka laabato waxaa sugaynaa in strategy-kaas quruxda badan ee lacagta noo sameyso saas oo kale in noo sameyso dib strategy-ka ugu soo laabato first flag sugatid kadib sii socod sababta ah lacagaha USD la xiriiraan lagu mudadeg karo go'aamadooda waxa waa haddii kula tagaan kula tageen marka insha Allah tacaala iska sugan haddii strategy-kan 1 2 3 ascending ay jibiyaan maxaa u baahanaa halkaas inay dib u taabato haddii halkaas ay tagtana maxaa ka suganaynaa haddana first flag qofka risk qaadanaya lacag meel fiican joogto waaye sidoo kale sii jibi kartaa almost halkaasna toos way u gaari kartaa ilaa halkaas almost in halkaas lacagta ay gaarto waa macquul gal so be alert insha Allah tacaala laakiin OUD USD mar walba waxa ka sugeynaa sidoo kale OUD USD beer ku jiro waaye whenever ay lacagta DX soo kala wareegto ayadana fursadeedu waxa waa hore ka banaanta hore diyaar ka noqon doontaa haddii uu lahayd insha Allah tacaala
okay week lacagtuna wixii tada sugano marka lacagtan weekan 1 2 3 halkan way ka soo daadan kartaa hadii dhaqaaqa dambe soo sameeyay israajilka in soo jeebiso kala xitaa oo zoonka ku soo laabato la qaadan karaa hadaa first falaag ka sugato saan oo kale ay ku sameeysan waa qaadan karnaa haduu ilaahidmo soo sidoo kale falaagaas maxay ku soo jibin doontaa israajilkan kale marka lacagtan ayadana xogaa fiican ku jirto haduu ilaahidmo ilaa halkan xataa ka xisaabsano waxa arkayna in 335 bib ay ku jirto lacag yar ma ahan insha Allah taala taxadarno asugana lacag haduu ilaahidmo okay aan ku xijino lacag loo yaqaan GBP JPY weegan maxaa ka suganayna ayadana aan fiirin JJ lacagtan la dhahay weegan maxaa ka suganayna lacagtan for day time frame kada idin geeyo strategic sawirkan haday sabir halkan aan soo qaad idin halka idin dhigo maxaa arkaysan saaxiibayaal micnaheedu waxa waaye lacagta markii saddex taabashan dambe ay sameysanaysay ayaga almost suuq wuxuu ka sii fikirayay strategic-kan kala xadan inuu bari abuuri karo oo ah hadda halka maxaa arkayna markii la jibiyo suuqa 1 2 3 ahay laakiin maxaa lagu sameeyay waa la jibiyay hay maxaa la sameeyay waa lagu soo laabtay good hadda inta suuq halkan rejection ka laabto oo ka laabto sababta ugu laabto marka micnaheedu maxaa waaye suuq sabira adiga arkeen uu sameeyna oo ah head and shoulder kaas quruxda badan hadda noo sameeyay JJ lacagtaas micnaheedu waxa waaye in suuqi lugtan dambe ay noo dhiman tahay lugtan ilaa halkan in lacagtan ay ka soo galeen weegan hadii ilaahid iyo weegada soo socda hadii ilaahid marka insha Allah taala anagoo haysana sawirkaas head and shoulder-ka hadana aan dib u fiirino macnaha hadii aragtid in Raylan halkan dhex mariyay injineerka muxuu dhex mariyay hadeen oo lacagta waa la jibiyay suuqa halkan la jibiyay maxaa la sameeyay lagu soo noqday retrace waa laakiin muxuu ku dhameystiraa suuqa 1 2 3 gaan ku sii dhameystiraa suuqa israajilkan ku dhameystiraa laakiin hadda maxaa arkan head and shoulder good garabka kala suuqa muxuu ka sameeyay fiir 1 2 3 kala haye 1 2 3 kala haye muxuu sameeyay first impulse dhaqaaqii koowaad maxaa dhacay hadda maxaa suuqa halku ku jira fiir first flag oo ah large flag 1 2 3 kala halka maxay ku tagtay lacagta fiir ascending kale ku sii tagtay maxaa u baahanaa marka weegan haduu ilaahidmo ayadana waxa ka sameeyay waxa ka rajeynana JJ quruxdaas sababta ah GBP sala ka suganayna JPY waxa ka suganayna bay qurux badan haduu ilaahidmo marka JJ waxay qayb ka tahay euro NZD iyo NZD USD iyo lacagta loo yaqaan NZD CHF NZD JPY lacaga high probability weegan inda zaad ugu ahaan doona GBSD ay qayb ka yihiin marka insha Allah taala suuqa weegan wuu diyaarsan yahay haduu ilaahina la garab galan insha Allah waa ka goran doona weegan hadana soo dhaafay dhaawacyada dadka soo gaaray iyo dadka xogaa Egypt ka soo gaar weegan inay ka kabtaan rajeynina haduu ilaahidmo marka maxaa arkana fiiri taabashada dambe suuqan uu sameeyay halkan suuqa Thailand almost waa ignore garay sababta uu ignore garay waxa waa suuqa retrace ka dhacay almost marka qaar saas sameeyo waa ignore garay taabashada dambe suuqa halkan muxuu ku tagoyaa fiiri taabashada dambe suuqa halkan muxuu ku tagoyaa ascending aad iyo aad u qurux badan taasoo cadeynaysa in suuqan haduu ilaahidmo hatta okay almost xitaa uu strategy-kan soo jibiyo aan weegan ma qaadan doona JJ insha Allah taala mar walba aan risk entry ka qaadan doona lacagtan si ay dhaafin fursad quruxda badan ee abuuraysa haduu ilaahid okay halkaas ugu sii soconna haduu ilaahidmo waxaan noogu xigto weeg lacagta noogu xigto waxa waaye gold asxaabta gold weydiinaysa hadii arki doonaan lacagta weeg waxa ka suganayno iyo fursada ay abuuraysa haduu ilaahid okay lacagtan hadda daytime frame ka soo bilaawno goldi maxaa arkaynaa saaxiibayaal inay soo sameysay dhaqaaq symmetrical triangle dhaqaaqeeda kale hadda inay sameysay saddex taabashaas kale ka soo daadatay inay sameysay dhaqaaq intaan la eg dhaqaaqan soo dhacay iyo marka loo fiiriyo israajilka hadda meeshan ay lacagta ay ka sameynayso almost waxaa arkaynaa inuu yahay in dhaqaaqiisa uu dhiman yahay laakiin correctionkiisa inuu iska dheereysan doono ugu dambeyn dhaqaaq la mid ah in lacagtan ay ka suganayso sidoo kale laba lacagood hadii oo vaccine aan news gaashan laba lacagood indhaha zaid ugu haaya lacagtan loo yaqaan goldi zaid u saameyn ugu yeelan doona hadii ilaahay iyo lacagta loo yaqaan kale USD waa lacag high volatility qofkii akoonkiisa uu yar yahay iyo qaabka loola macaamilo aan aqoon waxa waa recommendation waxa siina inuu trade grading lacagta sidoo kale fursado qurux badan ay halkeeda kan laga yaabo 300 200 ka tabib halkeeda kan ee dhaqaaqdo hadii kula jeesatana 600 700 hamar dhaqaaqaysa marka lacag zaid oo xamaasad badan waaye insha Allah taala take care marka labadaas lacagood zaid saameyn u yeelayeen hadda dhaqaaqa kun iyo xogaagan soo daatay maalinkaas goldi lacagta USD ayadana kun iyo xogaa hadana ayadana buy ee aadi fahmaysaa marka laba lacagood zaid u saameyn ugu yeelato ahay marka insha Allah taala weegan ayadana waa rajaynaynaa in niisada fakasiinka anigu la kaashaneen in lacagta indhaha ku hayn doona fursad qurux badan dalaad waxa ogeena 100 biiba kor u bood anigu salka ka suganeen okay halkan waxay ka sameysay lacagtan 1 2 3 waxay ku sameysay ascending kale dhaqaaqaas quruxda badan soo sameysay laga yaabay dadka qaar
inay ka fikirayeen in kunkan bii maalinkaas ay usoo daadatay structureka ay samaysatay ma ahane kun bii hal maalin gold inuu soo daato wax inta badan aan usual ahayn waaye ilaa news saameyn ku yeelan inay noqdaan okay halka maxaa ka arkaynaa so let's see halkan waxaa ka arkaynaa in expanding kale uu soo dhacayo oo ah 1 haye 2 maxaa u baahannahay 3 ayadana halkaas inaad soo samayso sidoo kale 3 see kusoo samayn doontaa meeshan hadda maxaa ka dhacaya fiiri middle section kale oo halkan hadday kusoo taabato taabasho dambe halkaas markay dhacdo dhaqaaq lamid almost hadduu soo dhicin ilaa meelahaas oo kale in lacagtii ay imaato 1810 ilaa 1800 inay tagtaa la expect gareynaya hadduu ilaahay ma gold marka anagoo strategy ka duuleyn hadduu ilaahay ma gold waxaa ka sugaynaa fursadaas quruxda badan haddii ilaahay sameeyay waxaa maqli jiray isheeg maxay ahaayeen maamahdii aabkan yar iga celkan weyn saaxiib yaal bitcoin ma trade gareyn karta halkeeda kan dhalaa 10 pip ah marka insha Allah taala isku mashquulinina akoonadiina almost sidoo kale spreadkeeda zaid waa kun xogaa 2,000 xogaa oo gaara marka qaar spreadkeeda marka we don't give shit hadda weegan maxaa ka suganayna bilaw ilaa waxaa ka suganayna horta salkaas quruxda badan ilaa halkan ay ku imaanayso oo 200 xogaaga ah 260 camal waay dhaqaaqan soo dhacay waxaa arkaynaa in uu steep flag yahay rejection fiican suuqad soo bixiyay in ilaa halkaas dambe halkaas ay soo gaarto kadibna dhaqaaqaas dambe ee buyg waa ka faa'iideysan doonaa haddii eeb uu idmo haddii marka strategy ay sii jibiso flag kalena siisane waaba kheyr bato oo lacagta sideeda kusii salgareyn doonaa haddii ilaahay marka weegan saasa ka rajaynaynaa iyo strategy suuqa iyo waxa uu inoo sheegaya waa qayb ka tahay haddii ilaahay insha Allah okay aan fiirino lacag kale noogu xigto lacag kale US oil weegan maxay sameynaysaa let's see saaxiibayaal US oil waxay abuuraysaa 4 hour xataa afiirino fursad ajaa'ib ah suuqa ka sameynaysa ta arkaysan halkaan oo kale halkaan waxay ka sameysay 1 halkaan maxay ka sameysay 2 maxaa sugaynay dhaqaaq falaag si socosho dambe marka hadda aragto suuq trade meel reversal inta ka soo qaadatay kula laabtay hadda markaas trade kaada ka baxsanin micnaheedu waxa waaye strategy ku dari doona hadda meesha muxuu abuuraa fiiri 1 2 maxaa u baahanaa 3 1 2 3 gaas maxay ku sameynaysaa ascending oo 1 2 3 kale oo halkan ka sii noqon doona double top maxaa u baahanaa markaas lugtaan soo dhacday suuqa lugteeda kale inay noo dhacdo hadduu ilaahidmo almost ayadana halaas oo kale quruxda badan inay siiso strategy lacagta hadda iyo waxay inoo sheegayso hadduu ilaahidmo insha Allah taala weegan ayadana lacagaha zaidka fursadaha quruxda badan inay abuuraan laga yaabay ee noqon doontaa marka take care ayadana ilaalsan insha Allah taala lacagta loo yaqaan waa US oil insha Allah taala maxaa noogu xig saaxiibayaal waxaan ugu xigto lacag kale loo yaqaan GBP/NZD waxay qayb ka tahay lacagaha weegan zaid indhaha uga hayn doona hadduu ilaahay hadda waxa idin dhahdaa xustaan GBP anigoo silka sugayn waxa arkana lacag GBP/NZD iyo EUR/NZD in ayagana wajiga kale ka sugayn hadda waxa arkana in lacagtan ay samaysatay awl laba taabashada meesha ka samaysatay dib u kacday meesha mini ka jiray zoonka hadda ay joogto lacagtan zoon aad iyo aad xamaasi ah oo xamaasad badan maxaa soo dhacay W isla jira lagu abuurayo ah halkaas markay halkaas lacagta tagto in haddana sorry in waxa sugeena lacagta haddana strategy-kaas ay dib u sii dhameystirto oo marka halkaas imaatana haddana lugtaas kale ee duu ilaahay ma sii dhaco marka GBP/NZD maxaa ka arkayna hadda double button maxaa lagu socdaa ascending maxaa dhaca haddana was ascending kale ascending waa high probability trade so how trade kan ku qaadan doona hadduu ilaahay trade kan almost ilaa strategy-kiisa halkaas ku soo dhameystirana soo taabanayo waa iska sugan doonaa haddii strategy-kan soo jebiyo oo banaanka ka soo istaago xitaa falaag kood hadaan suganin strategy-ka hadduu mar soo jebiyo waa qaadan karna trade-kan laakiin almost in lacagta haddana laga yaabo in kugu sameyso waxaan oo kale haddana markii meelahan ku imaato in taabasho kale ka dhigata haddana sii socoto haddii xataa correction ay aragto in running general kugu noqdo dib kugu soo laabto hadduu ilaahidmo marka GBP/NZD fursadaas aad iyo aad u qurux badan abuuraysa weegan hadduu ilaahidmo soo ayadana indhaha ku hayn doona hadduu ilaahidmo lacag aad iyo aad u qurux badan waay GBP/USD maxay abuuraysaa inkastoo fursad qurux badan ay igala muuqanin laakiin waa fiirinaynaa GBP/USD ayadana waxay abuuraysaa lacagtan strategy-kaas quruxda badan ay abuuraysaa oo ah in 1 2 3 gan dib u dhameystirto taabashada dambe halkan ay ku soo taabato hadduu ilaahidmo 3 taabasho oo double top qurux badan ah sidoo kale meeshan maxaa arkayna hadda inay yihiin head and shoulder oo kale ee lacagta halkaas oo kale sii gaari karto waa sabir lacagta macquul gal ay sameyn karto laakiin almost sabirkan ka muhiimsan inay ka sameyso hadduu ilaahidmo GBP asalka sugeena hadduu ilaahidmo ayadan inay saas noo sameyso arjinina weegan GBP/USD laakiin isdiyaarin fiican weli ku jirtaa waa sugan doona ilaa iska dhameystirayso laba lacagood oo USD hogaaminaysa ka soo qaatay lacag loo yaqaan USD CAD iyo lacag loo yaqaan USD CHF labas bira lacag oo doolarka uu hogaamiyo ka qaataa lacag kale almost ma ka trade galay aniga ahaan qofkii trade gareynay oo u fiican tahay
okay maxaa ka suganayna lacagtan loo yaqaano USD card hadduu ilaahidmo weegan waxaa ka suganayna ayadana fursado buy ah maadaama doolarka hadda ka suganayna in uu sameeyo waxa loo yaqaano sarkacaas hadda lacagtan maxay soo sameynaysaa haddaa fiirisaan oo kale lacagtan weegii hore halkaana laga celiyey way jebisay double button oo ahayd soo laba taabasho oo ahayd waa la jebiyey dib u soo laabtay flag ay bixisay way sii dhaqaaqday maxaa soo dhacay hadda steep flag hadda dhacay oo large ah lacagta halkaas inay kasii aado ilaa halkaas toos u aado weegan waa dhici kartaa waa macquul gal waa duulahayn good sidoo kale sawirka kale waxyaabaha dhici kara possible ka qayb waxa ka noqonaya in lacagtan dib loo soo celiyo oo double button ka dib inta la keeno markaas meeshan haddana looga arimiyo la dhaayay halkan ka sii bulsho kareen lacagta ilaa kasii ka gaarayso cad waxa arkaynaa in sal qurux badan ay sameynayso USD marka haddii halkan dhalo buy ay sameynayso waxa arkan USD card in buygeedu fiicnaan doono sababta card waxay ku socotaa sal sidoo kale hadda card waxa arkaynaa inay sameysay Brexit trade ee la gashay lacagta loo yaqaan nimanka loo yaqaan GBP Great Britain in la galeen marka ayadan taas waxay ka dhigi kartaa in support u noqoto good news u noqoto lacagta kor u soo kacdo marka insha Allah taala lacagtan USD card labadaas option ka sugan in israajalkan dib u jabiso iyo in lacagtan double button ka inta la keeno dib loo sii push gareeyo haddii uu ilaahay USD card dhaqaaqeedu waa dhaqaaq iska caadi waa lagu gali karaa akoomada yar mar walba akoon yar waa la naqaanaa lodkiisa lod xamuulha saaran adi mar walba waxa waaye lacagtaad usii haysatid okay waxaa arkaynaa meeshan lacagta loo yaqaano USD CHF waxaa kaasna 1 2 3 USD CHF inta badan waxay ku isra jartahay lacagta loo yaqaano USD da caadi indexkiyo ama waxa u taqaanaan DXY oo isku isra jar yihiin sidoo kale hadda meeshan waxay abuuraysaa daa fiirsaan oo kale meeshan awal ku sii calaamaday head and shoulder inverse inay abuurayso oo taabashada dambe ku soo sameysanayso waa kana sawirkan hadda iska tirna asigana si fiican hadda u arkaysaan garab madax hadda in garabkii kale marka garabkan kale inay abuurto taas waxay ka dhigi kartaa in lacagtan ay imaato zoonkan in soo testgareyso mujida macna meesha inay halkan oo kale ay imaato oo strategy-kan halkan soo taabto kadib meeshan laga sii push gareeyo waa possible inay dhacdo duulaydmo sidoo kale CHF hadda maxaa arkaynay in sal yar oo dhiman tahay salkaas yar oo dhiman almost ka dhigays marka ilaa meelahan oo kale inay soo gaarto kadib intaan ismayso sorry salkaas haddii dollarka ka helna fursad yar oo buy uu sameeynaya aydan waxa arki doona in dhaqaaqyadaas quruxda badan ay noo sameyso marka USD CHF iyo USD card labadaas fursadood weegan waxa ka banaan fursado qurux badan haddii halkan ilaa halkaas fiirino waxa waaye 256 pip hadii la hadmo sidoo kale lacagtan loo yaqaan USD CHF ka waxyaabaha ay ku fiican tahay waxa qayb ka ah fursadeeda buyga aad iyo aad u qurux badan waxaan kale quruxda badan ham dhaqaaqyada xoog badan ay sameysaa sidoo kale maxaa arkaynaa had fiiri dhaqaaq Steve Flag meeshii hadda in ka laabato kadibna buygaas dambe ay ka sii aado adoo ku xisaabtamaya sectionskan oo suuqa laga celin karaa duulaadmo ilaa double topkaas insha Allah taala aan fiirino lacagtan ku xigto wiiga lacag loo yaqaan Nasdaq maxaa ka filanayna wiigan inkastoo amaan Nasdaq waxa waaye fursadaha ay abuurayso waxa la isku haleyn karin ay qayb ka tahay hadda waxa arkaynaa lacagtan Nasdaq loo yaqaano inay sameysay fursadan taabashadan dambe suuqa ka sugeen inay dib ugu soo laabatay هذا waxaa arkaynaa Steve Flag qurux badan inay soo jebiso soo break out gareysay in large flag ay abuurayso flagan ujeedi meesha ku laabanaysa in one more time halka imaato hadana buyers loo celiyo kadibna salkaas quruxda badan ayadana ay soo sameyso hadii uu ilaahay insha Allah taala marka lacagta Nasdaq fursadaas ka suganayna sidoo kale waxyaabo macquul galka indhaha laga qabsan karin waxa qayb ka ah in hadii mar walba lacag correctionkeeda uu dheeraado in dib loo sii push gareeyo oo halkaas dib loogu celiyo toos oo halkaas loogu soo gaarsiiyo lacagta meesha ka soo daadata hadii ilaahay marka Nasdaq weegan fursado sale abuur doonta laakiin waxa ka sugan doona ilaa lacagta strategy-keedu iska sii dhameystira hadii ilaahay insha Allah taala sidoo kale laga yaabo hadii vacancy-ka news soo baxan in aydan saameyn buy qurux badan ay ku sameeyso kale laga yaabo USD aan fiirino ayadana USD saaxiibayaal recommendation waxa dhiibaya asxaabta akoomada yar haysto inay trade gareenin USD hadda maxaa ka arkaynaa weegan sameynaysa daa fiirsan waa kana dhaqaaqay kunka bib ee maalinka vacancy-ka soo baxaya ayadana ilaa halkaas ay gaarayso waa imisa 1400 bib ee kor u kacay USD lacag aad iyo aad volatility u badan yahay halkan kan dhal waxa arkaysa in 500 iyo 600 wax ku dhow uu yahay kaligiis fi 300 bib halkan kan waa 200 bib marka lacag aad u xamaasad badan akoomada yar recommendation kuma siinay akoomada waaweyn xitaa 0.1 iyo 0.2 NF ku tahay sababta hal mar kula jeesatay aad ku dhibaateynaysa maxaa arkaynaa marka lacagtan in hadda large flag meeshan ka awrayso dhaqaaqa soo dhacay in sal dambe ilaa halkaas hadii soo jeebisan ilaa halkaas ku sii gaari doonto halaas inay macna meeshan soo imaato waxa waaye lacag fiican waaye halaas waa kun xogaa u maleyn hadii san ku dhaweyn 761 pip marka insha Allah taala akoomada yar ma ku recommend gareena kuwa weyn 0.1 iyo 0.2 euro OD euro NZD euro card almost
fursado fiican igala muuqanin laakiin waa fiirinaynaa maxaa ka arkaynaa lacagtan loo yaqaano euro ishak lacagtan loo yaqaano euro OUD waxaa ka suganaynaa iyadana inay soo dhacdo dhaqaaqaas correctionkaas kadibna ilaa one more time halkan dib loo soo taabsiiyo lacag halkan laga bush karay ilaa buygaas ay ka aado haddii ilaahay insha Allah eurocardna aan fiirino la sii eurocard maxay abuuraysaa ayadana fursad ay abuurayso fursad kale ayadana buy ku sameynaysaa oo halka saddex taabasho ay ka noqon karto ama salka ka soo aadi karta haddii ilaahay idmo marka insha Allah tacaala saaxiibada sharafta leh falanqeynteena isbuuc halkaas ay inoo joogo mar walba hadduu ilaahay idmana saaxiib yaal zoomka waa duubay don't worry guys waa duubay suuqa zoomka noo duubay insha Allah youtube kana soo dhigi doonaa hadduu ilaahay idma saaxiib yaal suuqa wuxuu u baahan yahay dulqaad suuqan waxa waaye qofka aan dulqaadan karin ma joogi karo mar walbana waxa waxa heeskan guusha meesha inoo jirto ma ogin laga yaabo maanta suuqa marka ka baxda in suuqi uu fiicnaado birim ku soo laabanay go'aan qof leh min noqonaysid markaas marka meeshan haddii ay tahay sawirkaaga meeshan haddaa u timaado in meeshan meesha iyo noloshaada ku horumarin lahayd oo aad ku bedeli lahayd ay tahay mar walba maskaxda waxaa ku haysaa easy come easy go wax sahal ku imaanaya ma jiro micnaheedu wax walba waxay rabaan dulqaad wax walba waxay rabaan waqti ninkan maanta millionaire-ka arkays hal maalin iyo laba maalin muus ku sameynayn waxyaabaha dadka inta badan millionaire waxay sheegaan qofka inuu lacagtii millionaire noqdo waxa ugu dhibka badan oo challenge ku noqona in 100,000 dollar ugu horeeyo inuu sameeyo 100,000 dollar haddaa mar samaysid 100,000 investigate ayada iska soconaysa insha Allah 1 million way gaaraysaa marka 100,000 saa u sameeyna waxa u baahanahay in jadwal u sameysano in waqti u sameysano in dul qaadano marka insha Allah tacaala waxa u baahanahay waqti ugu badan in ku bixin in dul qaadano in suuq sugano in rajada u abuuro haddii ilaahay idmo إن شاء الله تعالى فلنقينتين هالكاس إنه جوجيسا وحي السؤال أن كصاب سنين لعق إيه فيري وفردونا إن شاء الله كايس مركا إلى فهم إنتاس